daarahan dhaadheer ee magaalada Melbourne ayay noqdeen kuwa tirada ugu badan ee cudurka COVID-19 laga helay iyagoo 9 kamid ahna xayiraad adag la saaray inkastoo hadda 8 kamid ah xayiraadaasi laga qaaday. Masjidka Soomaalida ee xarunta Amsa ayaa u dhow daarahan waxaana ay albaabada u fureen jaaliyadaha ku nool gobolka Victoria gaar ahaan magaalada Melbourne in ay halkan ka gargaaraan dadka xaniban. بسم الله الرحمن الرحيم مقاعي ويسع عبد الله وحنا هاي Executive Director of AMSA Youth Connect ما أنت مشان جوجنا وأمسا سنتر كذي وايه مركي حيراد اللي جسور رجع سجال كطبق الصومال وبدن تاع ملبون كيالو أمسا وحي جو عن سطين الباب أوفرته سلوا عون لهذا كاس مركز واحد عضي community جدا أو فيكتوريا community جدي isku yimaday sida ay u caawiyaan dadka walaalahooda ku xiran guriyaha ay dawladdu xirtay ayadoo waliba siinin wax degniin ah soo marka anaga ilbaabada marka aan furnay donationkii meel la kala geeyaa la waayay ilaa uu centerkii buuxsamay meesha u jeedado dhan kadibna aan hoos u wareegnay oo ilaa hoos u buuxsantay kadibna aan dhiri inta in ka badan ma qaadi karno. Xarunta dhexe ee Amsa iyo masjidka North Melbourne waxay u istaageen inay gargaaraan dadka ku xayiran sarahan dhaadheer oo ku yaala xaafadahan tan iyo markii xayiraadda adag la saaray. Halkan iga dambaysa waxaad arkaysaan waxa buuxa agab kala duwan oo raashin uu ku jiro oo ay soo tabaruceen dadka degan magaalada Melbourne. Hadda waxaan ku sugannahay masaajidka Amsa oo aan dhex taaganahay waxaan nala joogaa Universal TV tan iyo maalintii ay dhacday dhibaatadan la xiray 9 building waxaan dhexda u xiranay haddaan nahay hooyooyinka Soomaaliyeed in aan caawino dadkeena ku xiran buildinada waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee dadkanaga ay u baahnayeen oo ay ka mid yihiin babyga caanihiisa neebigii dishwashkii dhalka aan alaabta lagu dhaqanayay waxyaabaha dumarka ay isticmaalaan toilet paperkii rootigii oo ka dambeeya oo halkaas ah waxaa jiro dadka saraha saaran inay marmarka qaar ay soo dirsadaan special order waxaasaan u baahanahay waxaasaan naga go'ay meel kastoo ay joogaan Soomaalida dadka lockdownka uu ku dhacay wax walba waa u geynaa marka deliveryga markay ay soo sheegtaan waa qorqornaa wax alaal waxay rabaan aan siinaa meeshaana wax kasta waa laga helaa dad nool ma ogiye. السلام عليكم مقعيقة والسقل ما أنت روح عني شرح يا واحد بقسياش ميشان ويالو أنا بحا أركسين الله بها كجرو عانو دانجو إيو بسكوت وماشي اللي دحق ليه ودتك أوجيننا أو سرياش جوجو. عبد العزيز عبد الفارح وحو كميد yahay madaxda jaaliyada Soomaaliyeed ee gobolkan Victoria waxa uu ka waramayaa waxa la haboon jaaliyada Soomaalidu in ay ka yeelaan cudurkan COVID-19 baafa sida ala socotid cudurkan coronavirus waa markii ugu horeysay oo uu saameeyay jaaliyada Soomaalida ee Australia iyadoo hore uu saameeyay jaaliyada Soomaalida ee wadamada Europe dad badan waa uu ku dhacay waxaan ku boorinaynaa mujtamaca Soomaaliyeed meel kasto ay joogaanba in ay isbaaraan baaritaanku waa muhiim weey si aad ogaatid inaad tahay qof sida viruska ogana hortagtid inaad qaadsiisid qoyskaaga saaxiibadaada iyo mujtamaca kale ee bulshada maadaama Soomaalidu ay tahay dad aad isugu yimaado waxa kale oo muhiim ah in la raaco fariimaha dawladda iyo awaamirta hay'adaha caafimaadka ee ah in dadku ay kala fogaadaan in aanan la isbooqanin in dadku isbaaraan waa muhiim runtii ceeb ma aha mujtamaca Soomaalidu waxay u arkaan coronaviruska inuu yahay wax ceeb ma aha waa xanuun qof kastoona ku dhacaa inkastoo wali daartan dheer oo ay ku jiraan Soomaali aad u fara badan ay wali xayiraad adag ay saaran tahay isla markaana aan la gali karin amba aan laga soo bixi karin madaxa gobolka Victoria Daniel Andrews waxa uu shacabka reer Victoria ugu baaqay haddii aanay kala fogaan karin in ay afshareer xirtaan isla markaana uu noqdo afshareerkani mid ka hortaga faafidda cudurkan coronavirus. Brian Umar Baafe wararka Universal magaalada Melbourne dalka Australia.